بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بقى mahad iska leh TV qaranka suuqan kan halkan waxaynu ka hadlaynaa waxa jirta isku sheegmayna de wax ogtay ku sheega lama yiraahdo dib badan baa jirta oo ay kamid tahay roob la'aantii nagu dhacday waxaas waxay dadku gacmooda kasbadan bay kamid tahay tusaalahaan hadan ku soo qaato dhirtii baa xoog loo shiday hal dhuxul la yiraahdo imika degmadan Laasgaal waxay xad leedahay shan degmo Hargeysa Cadaadley Sabo Wanaag Dar es Salaam Bulaxaar iyo Mandheera shantaas la leedahay waxaad moodaa abaartii inagu dhacday inay dadkii u dhex raaceen oo qof wal oo bilaaadmi oo meel ku haystay 20 neef afartii geedi qoynaay hortiisa yaalay oo shidayo arintaas dhowr jeer horna waan sheegnay waxaan u baahanahay wasaaradda deegaanka iyo cid kasta oo gacan ka qaadan karta haday bilayska tahay haday wasaaradda deegaanka tahay haday dadka odayaasha tahay kullu cuqaasha maxaaday deegaankan matashaa waxa jirta saxiix ay soo saareen waraaqo ay u qaybiyeen wasaaradda deegaanka iyo bilayskaba oo ay yiraahdeen qofka dhuxul lagu qabtaa baabuurhaada ama qofaade hal xidho hal ganaaxo maxkamadda la saaro marka arinta dadka iyagoo uga faa'iideysanaya abaartii nagu dhacday oo marka tiraahdo ma dhirta caynka ka deysado kornayo waxaan cunaabaan waayo xulin waa leegiibsan waayay waxaan cunaan waan waayay imika oo ay roob inoo daado roobkaana ay u soo gureen dadkii xadka taxnaa ilaa kuwii galbeed qabtay dib looga soo raray xilli roobaadkii dadku galbeed joogana ay dhulka beeranayeen ay beeraha dadka si beeraha ku wanaagsan ay beeranayeen ay baabuurta laba dhigayso inta u dhaxaysa Dacarburuq iyo Dhubato u dhaxayso ay dhigayso xoolana aad ugu maranayo waxaanu khadiyaan ka taaganay wali ninkii dhuxusha shiday dhuxusha uu shidayaa afarta been jaaleen degmada xalka kala leenayba waa laga soo shidayaa marka waxaanu wasaaradda deegaanka mar labaad iyo mar saddexaad leelo dheer u direena arintaas sidii wax looga qaban lahaa in ay loo diyaar garoobo oo team lagu soo saaro oo arintaas sidii ay wasaaraddu nagula shaqeyn jirtay hore imikana ay nagula shaqeyso waxaad moodaa in la isku faanayo laga bilaabo oo barkhadle diinqal maxaa dhaanta Dhubato ilaa intaad gaariso laamidaad ka bilaabayso dhuxushu way rasaysantay markaad u degto miyiga tuulooyinka miyiga tagtana way rasaysantay baabuur baa loo iibsaday laba darifishinliyaalo yar kuwaan waxa uu leenahay meel kasta marayaan waxa lagu qabtaan leenahay si ay bal dadku ugu nabad galaan inta ay doog soo baxday dhirta laga shidayo in laga daayo arinta baaqa dheer maandiriya waan ku mahadsantay maxaaday TV qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku mahadsan imaatinka uu noogu yimi iyo kormeerka uu nagu soo sameeyay Mr. Cabdiqaadir maxaaday wariyaha Cabdiqaadir baan soo raacay oo man noogu yimi Laasgaal marka waxaan ku soo gabagabeynaya gurmadka abaarta waxayna iga daran gurmadka dhirshidada ee la shidayo keyntii qoyaneed si dhaqsaayn wax looga qabto ayaanu diyaar u nahay cid kasta oo nagala shaqeynaysa diyaar baan u soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa wasaaradda deegaanka hawsha lahayd in ay hawsha ku soo dhaqaaqdaan oo diyaar baan u nahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh